Asalaamu calaykum kulanti wacan idil ahaantiin baa meel walba aad joogtaan kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada kusoo biiray channelka rajada fanka aad bay u mahadsan yihiin waa uga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee uga mid noqdeen saaxiibada ku xiran channelka rajada fanka halkan mar walba waxaad kala socon doontaan arrimaha fanka fanaaniinta abwaanada iyo sidoo kale majaajilistayaasha annagoo arrimahooda halkan si dhow idinkugu soo gudbin doona haddii ilaahay idinka dhigo sidoo kale halkan mar walba waxaad kala socon doontaan xaaladaha iyo umuuraha markaasi taagan rajada fanka Soomaaliyeed ayuuna mar walba halkan kaga hadli doonaa saaxiibada nagu xiran aad baan uga mahadcelinaynaa waan ka raaligelinaynaa in aan muuqaal soo gelin 2 days mashquul jira awgiis laakiin waanu jecelnahay saaxiibadeena inaan mar walba la socodsiino wixii update maanta haddii ilaahay idinka dhigo waxaan idiin soo gudbin doonaa ama caawa aan idiin wadaa oo aan jeclaystay inta aanan seexan inaan idinla wadaago saacadii aynu soo dhaafnay soo baxday heestaas oo ay soo qaadeen kooxda waayaha cusub taasi oo ah raab nabar iyo naxdina oo ay ugu talagaleen dowladda hadda jirta heestaasi oo saacadii aynu soo dhaafnay baraha bulshada aad u qabsatay magacyo badan loo bixiyay ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago walaal haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreysay ee channelkeena fadlan nagu soo biir taabo calaamadda subscribe-ta gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan haddii wadnahayga la jeexo oo qayb laga jaro jirhkayga jabkiisoo hadha xabiibi jacaylka haddaba daawadayaal sidaan dhammaantiin la wada soconno heestan ayaa waxaa la soo geliyey barta youtube-ka ee waayaha cusub saacadihii aynu soo dhaafnay ayaa la soo geliyey heestan ayaa komisoonkeeda waxay ahayd hees dhammaanba ay wada sugayeen bulshada Soomaaliyeed ha ahaadaan mucaarad ha ahaadaan muxaafad taasi oo dhammaantood ay u wada hanqaltaagayeen sida ay uga falcelin doonaan bulshada Soomaaliyeed ugu horreyn heestan dadkii ugu soo hadlaa ee hadalhaynteedu ay ka dhalato hadalhayn badanna laga sameeyo waxay ahayd fanaanka Dayax-Dal Nuurshe iyo sidoo kale xidigaha Muqdisho qaar ka mid ah kuwaasi oo heestan siyaabo kala duwan uga falceliyey ha ahaadaan abwaaniin gabayo ka soo sameeya ha ahaadaan kuwa maasooyin ka soo sameeya ama dhanka kale fanaaniin soo qaadaya ama sheegay inay soo saarayaan heeso lagu ammaanayo ama lagu taageerayo nabad iyo nolol sida heeso soo qaaday Xariir Axmed oo kale iyo sidoo kale fanaanka Dayax-Dal Nuurshe oo hadalhayn badan ay aad uga dhalatay heestan ayaa markaa waxay ahayd hees bulshooyinka Soomaaliyeed ay aad u wada sugayeen caawana ilaa intii la soo geliyey bartaas youtube-ka waayaha cusub hadalhaynteedu iyo falcelinteedu ay saameyn weyn aad ugu yeelatay barta internetka Soomaalida ugu faafka dheer ee Facebook halkaasi oo dadku screenshot ay ka soo qaadiyeen ay soo dhigayeen dadka qaar intooda badan asagoo yeela muuqaalkan 5 hawa ayuu wuxuu gaaray 30 like isagoo sii dhadhacayay markii dislike-tiisa inta aysan qarsoomin ilaa 48 kun oo dislike ku dhawaad shirkadda YouTube ayaa waxa ay qarisay dislike iyo like iyadoo bulsho aad u tiro badan ay dislike saareen muuqaalkan ayaa wuxuu noqonayaa muuqaalkii abid ugu dislike badnaa Soomaalida ee soo mara taariikhda Soomaaliyeed ama fanka Soomaaliyeed iyadoo heestani ay siyaabo aad u kala duwan bulshada Soomaaliyeed ay uga falceliyeen heestan ayaa caaw waxay noqotay mid aad loo wada hadalhayo iyadoo heestan magacyo badan loo bixiyay sida dislike magacyo badan bay dadku ugu yeerayeen iyagoo qofba si uu uga hadlayay heestani ayaa bulshooyinka Soomaaliyeed waxay noqonayaan mid hadda ay ku baraarugaan qaarkood waxay leeyihiin waxaa jirta dad taageero u ah nabad iyo nolol oo gadanaya dislike-ta oo waa la gadan karaa qaarkood waxay leeyihiin lama gadan karo oo waa dad muxaafada oo heestan macnaha aan raalli ku ahayn dad saasaa dislike gareeyay
laakiin si kastaba ha ahaataba heestan ayaa waxay noqonaysaa heestii ugu dislike badneed abid ee soo marta taariikhda fanka Soomaaliyeed. Dadka ka falceliyay heeskana sidoo kale waxaa ka mid ah rugcadayaashii waayaha cusub. Haba ugu horeeyo milkiilihii hore ee waayaha cusub Dalmar Abuubakar. Waxa uu kusoo bandhigay bartiisa Facebook isagoo leh aniga oo ah Dalmar Abuubakar Dalmar Yare, kana mid ahaa aasaasiyaashii iyo buddigayaashii kooxda waayaha cusub. Kooxdan oo ulajeedada aasaaskeedu ahaa buu yiri wacyigelinta iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed, iyada oo hadda taasi meesha ka baxday. Waxaan bari ka ahay foolxumada socota naftayda iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan uga tacsiyeynayaa magacii waayaha cusub ee aan u soo halganay in loo adeegsado fikrad siyaasadeed ama shaqsi oo haykalkii kooxda aad loo bahdilo, dhiiqana lugaha loo gelsho. Ugu dambeyn, fanka Soomaaliyeed waa hanuuniye ee hagardaamo maaha, ayuu kusoo gabagabeeyay. Sidoo kale dadka ka falceliyay heeskani waxaa ka mid ahaa fanaanka Dikriyo Cabdi. Isaguna waxa uu qoraalkiisa kusoo bandhigay bartiisa YouTube. Labadan fanaan ayaa waxay isaga mid yihiin qoraalkooda ay kusoo bandhigeen bartooda Facebook, iyagoo labadoodaba isku si uga aragti dhiibtay. Heeskana ayaa abid waxa uu noqonayaa heeskii ugu dislike badnaa ama ugu aragti dhiibashada badnaa ee soo mara fanka Soomaaliyeed. Taasna taariikhda ayay u gashay, iyadoo halkaasi ay ku kala cararayaan fanaaniintii ama rugcadayaashii waayaha cusub. Labadan fanaan ee Dikriyo Cabdi iyo sidoo kale Dalmar Yare ayaa sidoo kale waxa ay shaaciyeen ama afka ay furteen in ay ka baxeen kooxda waayaha cusub, iyagoo waayahanba aan kasoo muuqan ama kooxda waayaha cusub isku garab aysan kasoo muuqan. Haddana waxa ay sheegeen in beri ay ka yihiin wax walba oo dhacay. Kooxdanna gabi ahaanba ay garoomadooda iyo masraxyadooda ay faaruujiyeen, halkaasna ay kusoo afjarayaan noloshoodii iyo waqtigoodii farxadda badnaa ee ay kusoo qaateen kooxda waayaha cusub.